جزاه الله خيرا شيخ وسؤاشي تضباط سائل كان يقول لي شيخ حاسكيغا ناسك هدان كنوغو محي دينتو كقبتا سؤالي dhalinyarada waa su'aasha mas'alada ku saabsan ninku inuu xaaskiisa naaska ka nuugo aan kala qaadno طبعا waxa loo sameeyo nacfi iyo caana laga raadsaday waa nooc istimtaaca kamid sooma waa nooc istimtaaca kamid marka hadii uusan wax caana ka nuugin laakiin uu naaska afka geliyo wax caana si uusan ka nuugin markaasi inay banaan tahay shaki kuma jiro maxaa yeelay axaadiista tilmaamaysa istimtaaca iyo rag iyo dumarka gobasha galmada ka hor waxa dhex mara axaadiistaasi ma aynan diidin cumuumkeedana waxa laga qaadanayaa inuu bannaan yahay wax sharcan diidayana ma jiro waa nooc istimtaaca iyo mubaasharada iska bannaan ka mid suura waa suurada waa hadduusan caana ka nuugin suurada labaadi waxa weeyaan inuu caana ka nuugo laakiin uu iska tufo caani markiisa afkiisa galaan iyadana iska tufo iyadana way bannaan tahay wax ishkaalana ma leh suurada saddexaad waxa weeye inuu caana ka nuugo caanihiina liqo sooma ninkaasi caruur ilmihii buu qadiyey marka kaas suurada iyada ah oo markii intuu caana naaska ka nuugo caanihii uu liqo suuradaasina sida raajixa ah way bannaan tahay jamaahiiru ahli cilmi waxay leeyihiin wax ba'siya ma leh sababtu waxay tahay sharcan wax diidayaan jir haddii la yidhaahdo soo ma dhici karto caanahan uu islaanta ka nuugay in ay xurmo keento uu noqdo sidii ilmaheedii oo kale uu noqdo jawaabtu waxa weeye maya lianna jamaahiiri ahli cilmi waxay qabaan marka naas caana laga nuugay uu keenayo xurmo uu keenayo shuruud bay leedahay shuruudana axaadiista tilmaantay waa goorma waa inuu ilmuhu yar yahay oo caanuhu jidhkiisa wax tarayaan 2 sano iyo wixii ka yar caanaha uu cabayna lafihiisa kobcinayaan jidhkiisa nafaqaynayaan waa ilmo yar markaasa wuxuu nuugay ay keenayaan tahriim keenayaan marka labaad shardiga labaad nuugmada uu nuugay waa inay 5 nuugma noqoto sidii xadiidka Aisha tilmaamay 5 goor intuu nuugo mid walba intuu afka gashado nuugo inuu kala baxo isagu sidiisa u daayo ilmo hadana ku noqdo sidiisa u daayo hadana 5 goor markuu saa u nuugo ayay xurmadu iimaanaysa sooma tayib ninkan weyn marka ilmo yar ma aha sooma mar hadduusan ilmo yar ahayn caanaha naaska uu ka nuugayo saamayn kuma samaynayaan jamaahiiru ahli cilmi baa sida qaba wax saamaynay ku samaynayaan ma ay jiraan xadiis baa jira Salim mawla Hudayfa oo guri ku noolaa oo gabadhii ajnabina xaafadda ka ahaa xaafadii ku rafaaday kadibna nebi gabadhii wuxuu ku yiri xadiiska Bukhariga nuuji buu ku yiri si aad ya xaraam u kaga no yaani wax si uu محرمكو كنو حديث كاسي waxay leeyihiin ama muxuu ahaay xaaja keentay oo xaaja khaasa ama adu sibay u awilayaan laakiin jamaa'iru ahli ilmi waxay qabaan ilmaha yarka bay caanuhu saameeyaan ee ninka weyn ma saameeyaan sidaasina waa madhabu saxaaba ridwanullaahi calayhim Abd al-Razzaq fi al-Musannaf wuxuu ku keenay Abdullah ibn Mas'ud ma ninba xaaskiisi caanihi ku istaageen naaskiiba caanuhu ku istaageen markaasuu intuu ka nuugay buu tufay si caanaha naaska ku istaagay uga soo saaro ninkii waa shakiyey Abu Musa al-Ash'ari buu u tagay war islaantii baan caanihi ka soo saaray wal waran Abu Musa marka wuxuu ugu fatwooday si buu su'aash jawaabta ugu dhigay waa soo tago Abdullah ibn Mas'ud buu yimid markaasuu yiri niyo tana igu dhacday Abu Musa aan u tago sidan uu igu jawaabay ayaba warkii la hayaba Abu Musa yimidba
markaasuu wuxuu ku yidhi war abu muuse war ninkan ma ilmo yar baad mooday bu ya atadunnuhu radiican buu ku yidhi waxaad u malaynaysaa ilmo yaroo naasnuuga markaad leedahay yani wax weeyaan aad leedahay wixii aad nuugtay waa ku saameeya marka saxaabadu ridwaanullahi calayhim madaahibtooda cumar cabdillaahi ibni cumar dhammaantood aahaartu waa ka sugan tahay marka wax dhiba male waa nooc istimtaaca ka mida jaa'is ah oo ah bannaan wax saamaynayna aan ku samaynin xaaladdaa dambeoo caanaha inaad liqda ah baa culimmada qaarkoodii karaahaysanayaan oo fiican in laga fogaado maadaama khilaafba ku jiraba khuruujan min alkhilaaf in laga fogaado way fiican tahay laakiin ma xarimi karno wallahu aclam